ومهتنتي ولا فريستا ومهتنتي ومهتنتي بكي ومهتنتهاي برنامج قاعد كحيق ضي وحريرني سعاورا داود ومهتني هي قبيقيسي waxaan filayaa caawadan hadalkii la waday oo la lahaa wasiirku waa yari hooyarihi sirti waxa fashalay daawud markuu taariikhdii dib ugu noqday marka runtii aad baan idinku mahadinayaa dhammaan dadkiinaan wanaagsan ee Soomaalida ah ee halkaan isku yimi kooxdiina fanaaniinta odayaasha dadkiina hadlay hadalkiina qiimaha badnaa oo dhan kulliba wax kale hadaan idin taray karayn sidii ninka odaga uu yiri waana leelowdaan marka tagtaane inaan idin iraado waa mahadsantihiin aan idin dhaho anagu waa mahadsantihiin baa igu waajiba inta hadii aan idin iraado waa mahadsantihiin de waxaan filayaa safarkayguna uu soo daahayo waxa la yiraahdo martida xiisahoodu waa habeen reerka loo xulaalay saddex toddobaad baan idin la joogay marka waa ay dul qaadateen waa bari idin ka tagayaa marka caawa israaciseen marka taasna waan ka cudur daaranayaa inaad maaragtay ay saahato dhammaan beeshii Soomaalida aan soo maray goboladii aan soo maray oo Minnesota iyo Chicago iyo Columbus iyaguna sida ay si ka fiican bay soo dhaweeyeen marka inta hadii aan inta uga baxo waxaan filayaa habeenku waa dheeraaday waxyaalo badanna waa laga hadlay oo aad u wanaagsan anigu waxaan idin siinayaa warbixin yar oo kooban dhinaca dhaqaalaha dib u habeen waxa lagu wadaa in la abuuro ila dakhli oo cusub in qaabka maaliyadda oo imika jirana uu noqdo mid accountable lagu kalsoon yahay lagu xisaabtami karo wax walba sidii ay u bixinayna maaragtay aw ku socdo awna yahay budget hore loo qoondeeyay oo baarlamaanka uu approve gareeyay aw ku socdo dawladda iyada marka hadda waxay leedahay 3 bilood weeye mandate-ka ay haysataa maalintii dawladda caadiyan waxa weeye budgetka waxa la gudbiyaa January waxa isku soo beegmay dawladda cusub ee doorashadeedii iyo budgetkii la gudbin lahaa markay dawladda programkeedii gudbisayna madaxweynuhu wuxuu dalbaday in 3 bilood la siiyo ku soo diyaariyo budgetkiisii laakiin baarlamaanka waxay yiraahdeen waxaan isku xiraynaa mandate-ka 3 bilood aad qabsatay iyo mandate-ka aanu siinayno golaha wasiirada marka dhamaantii waxaanu haysanaa 3 bilood aniga waxa iga dhacaysa intaan maqanahay ma qanay ogolaan doonaan in kale way fiican tahay waa cadaadis in maaragtay lala xisaabtamo dawladda marka waxay ku khasbaysaa 3 bilood hadda markay dhamaato waa dhamaadka bishan hadda baarlamaankii fadhiya in maaragtay nin walba lagu xisaabtamo maxaa qabatay maxaa ku qorshaysan budgetkiina meesha la geeyo marka taas waxay muujinaysaa in ay muhiimad weyn tahay barnaamijka xagga dhaqaalaha barnaamijka dimuqraadiyiintu waa geedi socod aad u weyn laakiin Puntland ay ka go'an tahay qaab 10 sano ayay jirtay waxay ku dhisan tahay qaab beeleed xubno baarlamaan oo odayaal soo xuleen oo deegaan ku salaysan bay tahay stability waa aha laakiin maaha qaab lana joogtayn karo mustaqbal dheer lagu xisaabtami karo waa qaab ay tahay in laga gudbo marka dawladda waxa ka go'an ama maamulkan waxa ka go'an in barnaamijka dimuqraadiyadda la sameeyo waxa ugu horeeya la qabanaya waxa weeye in dib loo eego dastuurka Puntland draftii koowaad ee kilabaad waa dhamaadeen kii saddexaad baa imika loo fadhiyaa dawladdu inay baas garayso weeye dabadna baarlamaanka la geeyo loo codeeyo markii la ansixiyana in la geliyo public referendum oo dadku ay codeeyaan oo la ansixiyo weeye dabcan charterka Puntland ama dastuurka Puntland waa mid loogu talagalay inuu la jaan qaado mid dawladda federaalka ah oo marka ay wax ka soo dhismaan markaas la harmonize gareyn kara hadii dawladda federaalka marka ay socoto waxa kale oo kamid ah
in la asaaso xafiiskii electoral commissionkii in la sameeyo shuruucdii doorashada in la sameeyo axsaabtii in la ogolaado tirakoob in la sameeyo ugu dambeynna sanadka 2012 in la sameeyo doorashada lagu galo axsaab badan waa geedi socodka ka hirgalay Somaliland oo ay hadda ay ku jiraan kaas weeye midka uu qorshaysan Puntland oo runtii ay ka go'an tahay oo geedi socodkii oo socdo inay dhabtahana waxa muujinaysa waxa loo magacaabay xafiiskaas nin la yiraahdo Dr. Jimcaale oo ah nin loo yara oo arinta aqoon gaar ah u leh marka wasaaradda dhan baa loo magacaabay in barnaamijkaas sida loo hirgeliyo marka taasina waxay ka mid tahay meelaha aad loo saarayo muhiimadda kulantii wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudan oo idilaahantiin ba halkan waa muuqaalka Soomaalida oo idinka imaanaya bartamaha magaalada Toronto daawadayaal saaxiibayaal maanta waxa dhacay barnaamij aad u balaaran oo xaflada isla markaasna lagu soo dhaweynayay wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland waa mudane Cabdi Faarax oo ku magac dheer Juxa runtii Juxa oo ah nin dhalinyaro ah si idin muuqataba waxa uu si weyn maanta u qanciyay dadkii isugu yimid halkan waxaadna arkaysaa dad badan oo Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay halkan yimaadeen ama ay ka soo qayb qaateen shirkan waxa kamid ah waxyaabihii sida weyn caawa loo jeclaystay oo halka ka dhacay fariin gaar ah oo wasiirka la faray oo codsanaysay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu martiqaado maamul goboleedka Puntland magaalooyinkiisa kala duwan wasiirkana waxay la tahay in uu fariintaas ama codsigaas uu maqlay loo soo gudbiyay caawa haddaba waxaan jeclahay mudane wasiir ku soo dhawow magaalada Toronto ugu horeyn marka xiga bal maxaad nooga sheegi kartaa booqashada aad ku timid magaalada Toronto booqashada walaal waa mahadsan tahay Maxamed Daahir booqashadu waxay isugu jirtay laba wax mid waxay ahayd arrimo anigu ruuxigu reer meelahan aan ahaa reer Canada aan ahaa marka inaan dalka soo arko anoo yar bareebada way ugu jireen waxa kale oo muhiimad u ahayd inaan beesha Soomaalida gaar ahaan ku reer Puntland ku nool gobolka waqooyiga America aan soo aragno wada tashano uga xog waramo dalkii iyo waxa ka socda iyagana aan weydiino sidii qaybta ay tahay inay ka qaataan aad baa mahadsan tahay mudane wasiir runtii waxa kale oo garabkayga taagan oo igala qayb qaadanaya barnaamijka xasan cabdullaahi cumar waa xasan karatay oo ah soo saaraha idaacadda loo yaqaan ogaal isla markaasna ah dhalinyarada mar walba idin soo gudbisa barnaamijyada telefishinka muuqaalka Soomaalida daawanaysaan maanta xasan cabdullaahi ku soo dhawow aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Daahir iyo muuqaalka codka beesha iyo muuqaalka TV-gaba سعادة الوزير عبد فارح ومركو هوري aad baan ugu faraxsanahay xafladan aadka u qiimaha badan ee maanta lagu soo dhaweynayay oo runtii ay isugu yimaadeen dadweynaha Soomaaliyeed Toronto iyo nawaaxigooda aad u tiro badan fariimo badanna laga farayay sidee ayaad marka hore u aragtaa soo dhaweyntii lagu soo dhaweeyay iyo dadkii ka kala yimid deegaanada ka fog nawaaxiga Toronto oo qaarkood safar ay u soo galeen si ay uga qayb qaataan munaasabadan ayada aad baan ugu mahadinayaa dadka Soomaalida ahaa ee badnaa ee halkan ugu soo dhaweeyay iyadoo waliba habeenkii ahayd shirku inuu dhaco oo weekendiga ku aadana dabaylo ay yimaadeen hoteelkan lagu kala cararay caawna roob da'ayay ay yimaadeen runtii aad baan uga mahadnaqayaa runtiina meel walba oo tagasaas laga soo dhaweynayay beesha Soomaalida xataa Minnesota Minneapolis iyo Columbus iyo Ohio iyo Chicago inta baan soo maray si qeyri caado diiran baa la igu soo dhaweeyay marka waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantiin